السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان خيارتها شرفت له مالك سو جوجتان سو دواده كسو دواده قodobada warkeena ugu door karoon dagaal culus ayaa waxa ay saaka mar kale dib uga bilowdeen agagaarka magaalada Gondar. dagaal xoogan ayaa wali waxa uu ka socdaa duleedka magaalada Dizay. odayaasha axmaarada ayaa afka furtay iyaga oo ku baaqay in dagaalka laga wada qayb qaato. Tigreega oo sheegtay inay qabsadeen dhul hor leh. madaxweynaha axmaarada ayaa waxa uu ugu baaqay guud ahaan dalka Itoobiya inay difaacdaan dowladnimada dalka Itoobiya. daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. ciidamada Tigreega ayaa waxa ay sheegeen amaba ay soo bandhigeen in ay qabsadeen dhul hor leh kaasi oo maalmahani ay kula dagaalayeen ciidamada militariga Itoobiya. ciidamada TPLF ayaa waxa ay sheegteen in ay soo qabqabteen maxaabiis aad u badan oo ka tirsan ciidanka militariga iyaga oo waliba sheegay in ay loo wareegeen saanad military iyo gawaarida gaashaaman ee caanka ay ku tahay dawladda ama ciidamada militariga Itoobiya. odayaasha dhaqanka ee axmaarada ayaa afka furtay iyaga oo ku dhawaaqay in dagaalka laga qayb qaato. odayaashani ayaa waxa ay sameysteen dhufaysyo ay ka qoteen agagaarka magaalada Dizay iyaga oo leh waa in aan difaacana gobolkeena iyo guud ahaanba dalka Itoobiya. waxa nagu soo duushay Tigreeg waxa ay doonayaan in dhulkeena ay la wareegaan balse taasi ka yeeli meeno waa in aan difaacana. odayaashani ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa kadib markii gobolka axmaarada uu ka bilowday dagaal ka socdo 7 jiha kaasi oo la doonayo ama ay doonayaan ciidamada TPLF in ay la wareegaan guud ahaanba gobolka axmaarada. shalay ilaa iyo maanta waxa ka socda waqooyiga Itoobiya dagaalo lagu hoobtay. dagaalkii u adkaa ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Dizay ee deegaanka axmaarada. ciidamada TDF ayaa waxa ay geeyeen magaaladaasi duleedkeeda ciidamo gaaraya 10,000 kuwaasi oo doonayo in ay gudaha ay u galaan magaalada. ciidamada Tigreega ayaa waxa ay hareerayeen magaalada iyada oo dawladda federaalka Itoobiya militarigiisa uu adeegsanayo diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwaasi oo la beegsanayo dhufaysyada ay ku jiraan ciidamada TDF. dagaalka ayaa waxa uu ka socdaa guud ahaanba duleedka magaalada Dizay iyaga oo labada dhinac mid kasta uu doonayo in guusha isaga ay raacdo. ciidamada federaalka iyo kuwa axmaarada oo isgarabsanayo ayaa waxa ay magaalada duleedkeeda ay ka qoteen dhufaysyo kuwaasi oo ay doonayaan in ay ku difaacaan magaalada Dizay. sidoo kale waxa isagana saaka dib uga bilowday mar kale ka qarxay dagaal aad loogu hoobtay agagaarka magaalada Gondar. dagaalka ay TDF ay wado ayaa waxa ay u sameeyeen dhowr jiho kuwaasi oo ay doonayaan in magaalooyinka ugu muhiimsan ee axmaarada in ay gacanta ay ku dhigaan iyo waliba iyaga oo doonayo in ay habacsanaan ee ka helaan ciidamada militariga kuwaasi oo waliba ay ka xirayaan ama ay u dhiganayaan jidgooyooyin iyaga oo u diidayo in ay isku gurmadaan. dagaalka ayaa waxa uu ka kala bilowday ama hadda uu ka kala socdaa meelaha ugu xoogan waa aaga Gondar iyo magaalada Dizay oo mid kasta uu doonayo in isaga uu maamulo. horay ayay TPLF waxa ay u sheegtay in iyadu aysan diyaar aynan u ahayn marnaba in ay la wareegto deegaanka axmaarada balse ay ku ekaanayso dhulkeeda taasina ay been ay noqotay kadib markii duulaan cad ay ku soo qaaday gobolka axmaarada iyo waliba qayb kamid ah gobolka Anfarta. madaxweynaha axmaarada Agagno Tashaga ayaa dagaalka ka socdo dhulka axmaarada ayaa waxa uu ku sheegay mid xaq ah oo waliba uu sheegay in lagu difaacayo ama ay ku difaacanayaan dadkooda iyo diintooda intaba. madaxweynaha axmaarada Agagno Tashaga oo kulan la qaatay hogaaminta diimaha kala duwan ee deegaanka axmaarada ayaa yiri culimada Tigreegu waxa ay shacabka ay dagaalka gelinayaan iyaga oo gacanta ku haysta qori xagga kalena iyaga oo ku haysta kitaabkooda iyaga oo waliba ku dhiirigelinayo ama difaacayo diintooda iyo dalkooda intaba. taasi bedelkeeda waxa aan doonaynaa culimada
axmaarada iyo weliba kuwa kale ee la nool in iyaga laftooda taasi mid la mid ah ay sameeyaan iyaga oo qoriga qaadanaya dadkana baraya diinta waa sida hadalka uu dhigay. Agagno Tashaga ayaa waxa uu cambaareen uu u soo jeediyay culimada axmaarada isagoo oo waliba ka codsaday in dagaalka ay qayb ka noqdaan xataa uu yiri waa in carruurta yaryarka la qoro si dagaalka si saf ballaaran lagu galo. Axmaarada ayaa waxa ay dhufaysay ay ka qodanayaan agagaarka meel kasta oo ay filayaan in ay ka soo gali karaan ciidamada TDF. Hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu imaanayaa markii ciidamada Tigreegu ay weerar saf ballaaran ah ay ku qaadeen guud ahaan gobolka Tigreega waxaana la filayaa haddii dagaalkan uu sii socdo in isaga laftiisa uu halkaasi uu iska casila ama uu ka taga shaqada. Shirkii uga socday Soomaalida iyo Canfarta uga socday magaalada Hawaasha ayaa waxa uu ku soo dhamaaday fashil. Shirkani ayaa waxa la iskugu yeeray ama ahaa mid saddex geesood ah oo ka wada qayb qaadanayeen wafdi ka socday dowladda federaalka Itoobiya iyo wafdi ka kala socday labada dowlad deegaan kuwaasi oo la doonayay in lagu heshiisiyo balse markii shirka la tagay ayaa waxa ay la soo shir tageen ciidamadii dadkii ka socday dhanka federaalka in saddexda degmo ee la isku haysto ama saddexda magaalo in lagu wareejiyo maamulka Canfarta taasi oo ay ka biyadiideen dadkii Soomaalida ah ee shirka qaybta ka ahaa oo yiri taasi nooma qalanto. Shirkina waxa uu ku soo dhamaaday is-afgaran waa. Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa khadka telefoonka waxa uu kula hadlay madaxweynaha dalka Djibouti isaga oo ka codsaday in dagaalka ka socdo gobolka Soomaalida gobolka City in uu soo farageliyo una la hadlana dadka uu ku sheegay in isku heybta ay yihiin madaxweynaha Djibouti. waliba waxa uu ka codsaday in shir lagu qabto magaalada Jigjiga taasi oo ka soo wada qayb galayaan labada maamul iyo Djibouti iyo wafdi ka socda dowladda federaalka Itoobiya kuwaasi oo la doonayo in mar kale lagu dhaxdhaxaadiyo Soomaalida iyo waliba Canfarta. laakiin se lama ogo xaqada waxa ay ka wada hadleen madaxweynaha dalka Djibouti iyo ra'iisul dalka Itoobiya. daawadayaal waxa intaasi noogu dhan war wixii dalay dibad naga soo gaaray oo halkan aan idinku soo jeedinay intaan warkan mid ka kulmayno hadii ay beedmo waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadino.